kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedka habeenimo ee warbaahinta Somali Vlogger Media qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka qayb galay dabaaldega 12 Abriil haddaba waxaan eegi doonaa sidee Muqdisho maanta looga xusay asaaska ciidanka xoogga dalka madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabada ayaan soo qaadan doonaa qodobada kale caawa barnaamij wareedka habeenimo ee warbaahinta Somali Vlogger Media aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo war culus soo saaray una digay ciidamada xoogga dalka haddaba waa maxay hanjabaadda uu soo diray madaxweynihii dowladda ku-meelgaarka ee Shariif Sheekh Axmed waan soo qaadan doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo weerar afka ku qaaday mucaaradka kula eedeeyay inay ka niyad jabsan yihiin horumarka ciidanka xoogga dalka xilli maanta uu isna khudbad ka jeedinayay munaasabadda asaaska ciidanka xoogga dalka barnaamijkeena caawa ayaad ku daawan doontaan waxaad kaloo daawan doontaan Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka oo shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn haddaba muxuu ahaa kulankaasi maxaase ka jira wararka sheegaya in kulankan xildhibaannimo loogu dhaariyay wasiirka degada iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaa caawa daawadayaal ku daawan doontaan barnaamij wareedka habeenimo ee warbaahinta Somali Vlogger Media haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo channelka subscribe saaro gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan wararka joogtada ah ee aan halkan ku soo baahino haddii aad horey loo joogtana waxaad ku mahadsan tahay like sar muuqaalka sina share kare waa hagaag aan ku bilaabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu ka qayb galay xuska 66aad ee sanad guurada ka soo wareegtay asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciidan tiro badan oo leh tayo heer sare ah kuna qalabeysan gaadiid dagaal oo kaashaaman iyo diyaarado dagaal oo ka mid ah kuwa casriga ah kuwaasi oo saaka lagu arkayay hawada sare ee magaalada caasimadda ee Muqdisho arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida loo diyaariyay awoodda qalabka iyo tayada ciidanka xoogga dalka oo sanadihii lasoo dhaafay gaaray guulo waaweyn laguna xoreeyay dhulal ay muddo dheer ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana ay ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa geesiyaasha xoogga dalka ugu hambeliyay sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay aasaaskoodii isagoo sheegay inuu rajeynayo horumar iyo barwaaqo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ku suntan adkaysi isla markaana ay tahay guul weyn in maanta loo dabaaldego sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay aasaaskooda geesiyaasha ciidamada xoogga dalka waa kuwa badbaadiyay 20 milyan oo Soomaaliyeed kaliya kuma difaaca qori balse sidoo kale way u gargaaraan maanta guusha ay gaareen taariikhda ayaa qori doonta hambalyo ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale wuxuu ka hadlay sida ay dowladdiisa uga go'an tahay in cadowga lagu xoreeyo koobaha ay ka joogaan dalka maadaama ay socdaan howlgallo xoreyn ah 12 Abriil sanadkii 1960kii ayay ahayd markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana hadda laga joogaa 66 sano iyadoo sanadkan ay ku soo aatay xilli muhiim ah oo dib u soo kabanayo milatariga Soomaaliya si weyn ayaana maanta Muqdisho lagu xusay dabaaldega sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka oo maanta si weyn looga dareemay magaalada caasimadda Muqdisho si ka duwan sanadihii hore ayaana maanta loo maamuusay sanad guurada asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah kan ugu awoodda badan qarannimada dalka Soomaaliya intaan ka bixin wararka ku saabsan munaasabadda asaaska ciidanka xoogga dalka markana wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa si adag u weeraray xubnaha mucaaradka ah isagoo ku eedeeyay in ay si ulakac ah u dhaliilayaan guulaha iyo horumarka ay gaareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
wasiirka ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad ballaaran oo maanta lagu xusay sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka taas oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ciidan, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo lagu soo bandhigay dhoolatusyo iyo ka ciyaar muujinaya awoodda iyo tayada ciidanka xoogga dalka. Intii uu jeedinayay khudbadiisa, wasiirka gaashaandhigga ayaa si gaar ah u bogaadiyey dadaalka iyo nafhurnimada ciidamada, isagoo xusay inay door weyn ay ka qaateen sugidda amniga, la dagaalanka kooxaha loogu yeero argagixisada iyo dib u xoreynta deegaano horey gacanta uga maqnaa dowladda. Wuxuu tilmaamay in isbeddel muuqda uu ku yimid tababarka, qalabaynta iyo isku duwidda howlaha ciidanka, taasoo sare u qaatay kalsoonida shacabka. Dhanka kale, Axmed Macalin Fiqi ayaa si kulul u dhaliilay siyaasiyiinta mucaaradka ah, isagoo ku eedeeyay inay si joogto ah u faafinayaan hadallo niyad jab gelinaya ciidamada iyo shacabka. Wuxuu sheegay in qaar ka mid ah mucaaradka ay ka naxeen bandhigii iyo dhoolatuskii maanta, maadaama uu muujinayay awood dhab ah oo ay ciidamadu yeesheen. Waxaa jira dad aan ku farxin marka ciidanka qaranku horumar sameeyo, kuwaas oo mar walba raadiya waxa ay ku dhaleeceeyaan. Kuwani waa kuwa quuri la soo kabashada ciidanka, ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi. Wasiirka ayaa sidoo kale carab ku adkeeyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay si joogto ah u maalgelinayso dib u dhiska iyo tayeynta ciidamada, iyadoo la kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah. Wuxuu xusay in qorshayaasha mustaqbalka ay ka mid yihiin kordhinta tirada ciidamada, tayeynta hoggaanka iyo horumarinta agabka militari. Sidoo kale wuxuu fariin cad u diray cid kasta oo isku dayda inay wiiqdo sumcadda ciidamada, isagoo sheegay inay tahay mas'uuliyad qaran in la ilaaliyo karaamada iyo kalsoonida ciidanka xoogga dalka. Wasiirka gaashaandhigga ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan taageerada ay u hayaan ciidanka, maadaama ay yihiin laf-dhabarta amniga dalka. Wuxuu ku dhiirigeliyey dhalinyarada inay ku biiraan ciidamada si loo helo jiil cusub oo difaaca dalka una diyaarsan. Ugu dambeyn, munaasabadii maanta ka dhacday Muqdisho ee ahayd sanad guurada 66aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ku soo dhammaatay jawi farxadeed iyo muujin qarannimo, iyadoo la xusay doorka taariikhiga ah ee ciidanku ku leeyahay difaaca iyo jiritaanka Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga ayaana isagu si adag u dhaliilay xubnaha mucaaradka, uu sheegay inay yihiin kuwo iyagu ka soo horjeeda horumarka ay gaarayaan ciidanka xoogga dalka. Dhinaca kale, Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii dowladda ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, ayaa isaguna waxa uu soo saaray war culus, waxaana uu digay ciidamada xoogga dalka. Madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo war-saxaafadeed soo saaray, ayaa ka hadlay maalinta qaran ee 12 Abriil oo ah markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo dhanka kalena digniin u diray ciidanka xoogga dalka. Ugu horeyn, Shariif Sheekh Axmed ayaa geesiyaasha xoogga dalka ugu hambalyeeyay sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay aasaaskoodii, isagoo sheegay inay tahay maalin weyn oo qiimo badan. Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa sarayaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskooda oo u dabaaldegaya munaasabadda 12 Abriil oo ku beegan 66 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in munaasabadda sanadkan ay ku soo aatay xilli xasaasi ah, islamarkaana ay taagan tahay xaalad adag ayna socdaan howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada, isagoo uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda iyaga oo markaa qaadanaya amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in arrintan ay dhaawacayso sumcadda ciidamada iyo dhexdhexaadnimadooda, islamarkaana ay wax u dhimayso kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. digniintan ayaa ku soo aaday xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay howlgal culus ku qaaday Koonfur Galbeed kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ay gudaha u galeen magaalada Baydhabo, iyaga oo kadibna meesha ka saaray maamulkii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee maamulka
koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen shariif sheekh axmed ayaana digniintan u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ugu dambeyn daawadayaal gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maanta gudoomiyay kulankan caadiga ahayn ee xubnaha guddiga joogtada ah kaas oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa. Sheekh Aadan Madoobe oo kulan ka furay ayaa xubnaha guddiga joogtada ah warbixin ka siiyay safarkii uu ku joogay magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo kulamo kala duwan kula soo qaatay mas'uuliyiinta maamulka iyo waxqabadka deegaanka. Sidoo kale wuxuu ka warbixiyay isbedeladii dhowaan ka dhacay maamulkaasi iyo dadaalada dowladda ay ku aadan doorashada hoggaanka Koonfur Galbeed iyo midda golaha wakiilada. Intaasi kadib habdhowraha guud ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa dhaariyay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo si rasmi ah uga mid noqday mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka. Sidoo kale waxaa la dhaariyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Ismaaciil Ciid Maxamed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Xasan Maxamed Cali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Marwo Nadiifo Aadan Isaaq. dhinaca kale waxaa kulankan aan caadiga ahayn lagu soo qaaday howlaha baarlamaanka iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa ajendayaasha muhiimka ah maadaama ay taagan yihiin xaalado siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo markuu furmo baarlamaanka la filayo inuu sii wado meelmarinta shuruucda muhiimka ah. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad xasaasi ah oo ka dhalatay go'aankii baarlamaanka ee wax ka beddelka dastuurka iyo hanaanka loo wajahayo doorashooyinka soo socda ee dalka. waxaa kale oo jira xiisad culus oo ka soo cusboonaaday qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka kadib markii dowladdu weerar ay ku qaatay Koonfur Galbeed, kaas oo meesha looga saaray madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. gudahaan daawadayaal caawa inta ayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijyadeedka habeenimo ee warbaahinta Somali Vlogger Media. waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijyadeedkeena habeenimo.